السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتين شرفت لي كحرن كانال كينا باراف إنجليش كسو دوادا عشر كيني مانتا عشر كيني كوي تبانات قيبتي سيكوات أو كساب سنان دونا موضوع لدهو auxiliary verb أما في صومالي هدا أبدل إنا قنيسو فالكالية ان انتينا عشر كان وقود قليل فضلا هدا نقو عصبتهاي سبسكرايب شير and like سي أناق إنا ونقط إيرقلين أدنا أود uga faa'iidid muuqaaladeen ugu dambeeyay aan soo gelino adigoo taabanaya kambaleelka mahadsanid sidaas u sheegayba cashirkeen maanta wuxuu quseyn doonaa ama ku baranaynaa auxiliary verb marka auxiliary verbska waxaa laga wadaa af Soomaali ahaan falkaaliye marka falkaaliyaashu ay badan yihiin maanta waxaa baranaynaa qaybtooda do and does okay do and does waxaan isticmaalaynaa marka rabno su'aalaha oo jawaabtooda ay noqonayso yes or no okay do and does are used waxaa la isticmaalaa when we want goortaan rabno to ask inaan weydiino yes or no questions su'aalaha jawaabtooda ay noqonayaan yes or no okay marka ayadoo faahfaahsan haddaan guda galno oo cashirkaan ku baranayno waxaa ka mid ah marka to make a question si aad u samaysid su'aal in English luqada English gudaheeda we normally use caadiyan waxaan isticmaalnaa do or does okay do or does it is normally put caadiyan waxaa la dhigaa do and does at the beginning of the question bilowga su'aasha la dhigaa su'aasha bilowga haddaad dhigtid do or does waxay ka dhigan tahay inay su'aal tahay qofka automatically wuxuu ogaanayaa inay tahay waxa meesha ku qortay ama waxa ka hadlaysid su'aal waliba waana loo sii tilmaamay inaan dhigayno before the subject subjectiga waxaan ka wadnaa way badan yihiin waa mowduuc qaasatan topiga ama su'aasha laga hadlayo waxa ay ku saabsan tahay waxa laga hadlayo waxay ku saabsan tahay haddaan tusaale yar ka soo qaadano halkan kuwa does iyo do qaadanayaan waa labadan kooxood okay waa labadan kooxood kooxda inta naga jirto waxay qaadanayaan do kooxdan kaleetan ayagana waxay qaadanayaan does waxaa filaa inaan isla fahanay labadan kooxood okay marka waa subject kuwan kooxdan bidix waxay qaadanayaan waa do waxa inta noogu qoran waa subject qaar kamid ah tusaale hadda u baahan tahay waa kuwan waana soo baranay cashiradeenii hore insha Allah haddaad fahmin fadlan ama aad ku wararsan tahay cashiradeenii hore dib uga laabo dhankan bidix ayagana waxay qaataan does okay haddaan ku bilaabo aniga I do you adiga ama adinka English markaad tilmaamaysid adiga ama adinka waxaad qaadanaysaa you waxay u taagan tahay adiga iyo adinka you waa adiga iyo adinka we anaga waa anaga they waa iyaga I do halkan waa auxiliary ahaan marka erigan do marna verb uu noqdaa oo samayn ah verb uu noqdaa laakiin hadda aniga verb shaqo kuma lihin maynan gaarin insha Allah cashiradeena dambe oo soo socdo aan ku baran doonaa marka hadda auxiliary ahaan u deynina I do you do we do iyo they do okay marka waa falkaaliyaal haddaan verb ahaan u bedelno waxay noqonayaan I do waan sameeyaa you do waa samaysaa ama waa samaysiin we do waan sameynaa they do way sameeyaan okay dhankan bidix ayagana does ay qaataan aan ku bilaabo he asaga he waa asaga she waa iyada it waa asaga ama iyada it waxa ku hoos jirto sifo lamid ah he iyo she bini'aadanka lab iyo dhadig ama rag iyo dumar waxa kala qaybinaynaa ama wiil iyo gabar wixii rag ah ama lab ah he aan siinayna waa magacuyaal pronoun oo soo baranay she waa iyada macnaheeda marka waa magacuyaal ama pronoun waxaan siinaynaa hablaha ama gabdhaha shayaan siinayna marka bini'aadanka maadaama labadan sifo aan kala siinay xayawaanaadka iyo shayyaasha qaar waxaa jira sifo lab ah leh qaarna waa sifo dhadig leeyihiin tusaale xayawaanaadka kuwooda labka ah sidii waxaa siinaysa sifo inay rag yihiin oo kale he ahaan halkan ku hoos jirto
kuwooda dhediga ama dumarka ah oo kale sifo waxaa siinaysaa dhedig ahaan. halkan waxaa ku hoos jirta sidoo kale she ahaan. Okay, asla fahanaa filaa. haddaan ku bilaabo he does, markan waa auxiliary verb ahaan wuxuu noqonayaa he does wuu sameeyaa, she does way sameysaa, it does wuu sameeyaa ama way sameysaa. waxaa filaa qaybtan inaan isla fahanay. marka halkan waxaa ku haysanaa do iyo does ayagoo faahfaahsan. halkan aan tablekan ama sanduuqan yar aan kusoo qaadanay saa u fahano qaabkii u qoran yihiin. marka waxaan sameeyey 3 qaybood. qaybta koowaad waa sample questions, waa tusaalooyin su'aalo ah, waa qayb tusaalooyin oo su'aalo ah. qaybta labaad waxaa inoogu qoran short answer ama affirmative oo u dhiganta hadal iska caadi aan su'aalna ahayn aana diidma ahayn. dhanka bidixna waxaa inoogu qoran short answer oo negative ah oo diidma ah. waa isla soconaa saa filayo. haddaan ku bilaabo midda koowaad waxayna leedahay do you speak English? English ma ku hadashaa? do you speak English? English ma ku hadashaa? do waa auxiliary, you-na waa subject somaha, waxa mawduuca looga hadlayo waa you somaha, qofka su-aasha la weydiinayo ku socoto waa you oo adiga ah. do you speak English? English ma ku hadashaa? hadduu do iyo does ee su-aasha ay ka bilaabanayso ama jumladda ay ku bilaabanayso waa su-aal xusuusnow. do you speak English? English ma ku hadashaa? marka waxaan soo sheegnay auxiliary-ga hadda isticmaalayno jawaabteeda waxaa u baahannahay yes or no inaynu noqdaan. Okay, midda koowaad ka jawaabno oo ogolaasho aan ka dhigayno ama positive aan ka dhigayno waxay noo noqonaysaa yes I do, ha waan ku hadlaa. meesha dhihi lahayd yes I do speak English, sheekadaas oo dhan markaa meesha gali lahayd iska soo gaabi, waa lagu fahmayaa. muhiimaddu waa intaan saanin ku qurux badan tahay. waxaa leedahay yes I do. do you speak English? Yes I do. English ma ku hadashaa? ha waan ku hadlaa. ama haddaa ku hadlin ama diidan tahay waxaa leedahay no I don't, maya kuma hadli. meesha dhihi lahayd no I don't speak English. Okay, midda labaad do I speak English? English ma ku hadlaa aniga? Yes you do, ha waa ku hadashaa. no you don't, maya kuma hadashid. do they speak English? ayagu English ma ku hadlaan? Yes they do, ha way ku hadlaan. no they don't, maya kuma hadlaan. Okay, marka I iyo you iyo they saa soo aragteenba waxay qaadanayeen do. Okay, hadda waxaan u gudubnay kuwa does qaato. does he speak English? asagu English ma ku hadlaa? he wuxuu qaadanayaa does. does he speak English? asagu English ma ku hadlaa? yes he does, ha wuu ku hadlaa. no he doesn't, maya kuma hadlo. does she speak English? ayadu English ma ku hadashaa? yes she does, ha way ku hadashaa. yes she does. no she doesn't, no she doesn't, maya kuma hadasho. does it run faster? si zaa'id ah miyay u ordaa? markan xayawaana laga hadlayaa, la soco. does it run faster? it waxaan dhahnay waxaan isticmaalaynaa xayawaanaadka iyo sheeyaasha sifadooda waaye. does it run faster? si zaa'id ah miyay u ordaa? yes it does, ha way u ordaa. no it doesn't, maya uma ordo. marka haddaan usoo laabto jawaabahan negative-ka ah, don't waxay ka dhigan tahay do not. do not ay ka dhigan tahay. do not ay ka dhigan tahay. kuwa does not na doesn't usoo gaabinay waxaan ka wadaa does not. does not oo lasoo gaabiyey asla fahna saafilayo waa does not. marka si aan u fahano faahfaahin badan oo ku saabsan auxiliary verbs-ka aan kasoo hadalnay qaybahan hore cashirkan, halkan waxaa ku bilaabayna ayagoo intaan soo faahfaahinay in ka badan aan ku baranayno anagoo isticmaalayna jumlooyin kala duwan insha Allah. haddaan ku bilaabo jumlada koowaad waxayna leedahay what does John eat for breakfast? what does John eat for breakfast? John muxuu cunaa quraacda? John muxuu cunaa quraacda? Okay, does waxaa qaadanaya dhahnay he she it somahan. marka waxaa laga yaabaa John kan muxuu meesha ka sameynayaa? John waa magac, waa noun, waa soo baranay cashiradeen ugu horeeyay ku laabo. John waa magac oo qof magaciisa. haddaa John qofkan magac weyaal u bedelayno ama pronoun u bedelayno wuxuu noo noqonayaa
he somaha meesha he aan qaadan lahayn John aan soo qaadanin marka magaciisa caadi toosan lagu tilmaamay. What does John eat for breakfast? John muxuu cunaa quraacda. Number 2 ayadan waxaan leedahay and do you want to go to the party? Do you want to go to the party? Ma rabtaa inaad tagto xafladda? Ma rabtaa inaad tagto xafladda? Party waa xaflad. Do you want? You waxay qaadataa auxiliary-ga do, okay? Kuwa you and do qaadanaya waxay ahaayeen I, you, we, they, okay? Halkan hadda you aan ku haysanaa. Do you want to go to the party? Ma rabtaa inaad tagto xafladda? Waxaa filaa inaad isla fahanay. Midda saddexaad ayadana sidaan u qoran tahay when goorma. When waxaa waaye goorma. When does she normally come home from work? Goormee ayay caadi ahaan shaqada ka soo noqotaa? Goormee ayay caadi ahaan shaqada ka soo noqotaa? When does she normally come home from work? Okay, does waa she. She ayaa qaadanayso does. waxaa filaa in isla fahanay ayadana number 3 oo ilaa hadda isla soconno cashirka. mid afraadna ayadan waxayna leedahay sida tan how many hours do they have to work? How many hours do they have to work? Imise saacadood ayay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan ama imise saacadood ayaa laga rabaa inay shaqeeyaan. Okay, waa waxay ku qasban yihiin oo laga doonayo inay sameeyaan. How many hours do they have to work? Imise saacadood ayay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan. Okay, do we enter from the front door? Do we enter from the front door? Albaabka hore ma ka soo galnaa? Do we enter from the front door? Albaabka hore ma ka soo galnaa? Okay, front waxaa loola jeedaa horey. Front waa horey. Okay, enterna waa galitaan. Do marka waxay qaadanaysaa we waa auxiliary. Okay, doorna waa albaab. Do we enter from the front door? Albaabka hore ayaan ka soo galnaa. Number 6 what do you do on weekends? What do you do on weekends? What waxaa laga wadaa maxay. jumladan waxayna leedahay maxaad qabataa dhamaadka isbuuca. caadiyanba dhamaadka isbuuca waxaa laga wadaa sabti axad. meelo waxaa jiraan sabti axad oo ah maalmaha nasiinada ama la nasto aan la shaqaynin. dowladka islaamkana waxaa waaye waa khamiis iyo jimco. marka sidaas uu kala duwan yahay. maalmaha waxaa la lahaa fasaxa ama nasiinada ama dhamaadka isbuuca weekends. Allah weekends. Okay, what do you do on weekends? maxaad qabataa dhamaadka isbuuca? maxaad qabataa dhamaadka isbuuca? Number 7 does your dog live outside or in the house? Outside waa banaanka. Outside waa banaanka. Does your dog halkan does reasonka usoo qaadanay waxay tahay waa dog waa xayawaan soo maahan markuu noun yahay. hadda pronoun ka dhiganayna it ayay noqon lahayd it. Okay, itna waxay ka mid ahayd kuwa qaadanaya does. Does your dog live outside or in the house? eygaagu ma wuxuu ku nool yahay banaanka ama guriga? eygaagu ma wuxuu ku nool yahay banaanka ama guriga? meeshan eyga waa ka bedeli kartaa waxaa doonta ka dhigi kartaa ama bisad ama waxaa doonta waxyaabaha laqda ka mid ah. Does your dog live outside or in the house? eygaagu ma wuxuu ku nool yahay banaanka ama guriga? Number 8 where do you want to send the item? Where do you want to send the item? xagee rabtaa inaad u dirto alaabta? Item waa alaab oo hal shay ah ama waa shay. Items waa alaabo. Item waa alaab. Items alaabo. Where xagee? Where do you want to send the items? 9 ayadan waxay leedahay why does she always behave like that? Why does she always behave like that? maxay had iyo jeer sidaas oo kale ama sidan oo kale ugu dhaqantaa? maxay had iyo jeer sidan oo kale ugu dhaqantaa? marka behave waa hab dhaqan qofka uu dhaqmo. Why does she always behave like that? maxay had iyo jeer sidaas
sidaan oo kale ugu dhaqantaa. Mideeni tobanaad ee ugu dambeysa waxayna leedahay sida tan: Does she get up early every morning? Does she get up early every morning? Subax walba subax hore miyay kacdaa? Subax walba subax hore miyay kacdaa? Early waa subax hore ama aroor hore. Does she get up? Get up waa kicid. Get up waa kicid laga soo kacayo hurdada. Okay, qof hurda markuu kacayo waa get up. Get up, get up. Qof markay ku leedahay waa kac kac. Does she get up early every morning? Subax kasta ama subax walba subax hore miyay kacdaa? waxaan rajeynaa insha Allah inaad fahantiin cashirkan. waa inoo cashirkeeni xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.